وأنا وناكسن وبرامج عن كجاه الله إنه doorashadii ka dhacday Somaliland iyo wasiiradii lagu dhawaaqay dhawaan iyo arrimaha u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya doodan waxaa ka qayb galaya Fuad Cabdi Ismaaciil oo ku sugan Minneapolis iyo Maxamed Xaashi oo ku sugan dalka Ingiriiska labadaba khadka satellite-ka sida live-ka ayay ugu jiraan daawasho wanaagsan وعنا wanaagsan dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijkan maxamed xaashadaan kugu bilaabayaa siday kula muuqataa doorashadii ka dhacday Soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا دين السلامي انجنير كمال يو فؤاد لبدي نبأ ان والله هدي عنو صنع نغضو عاشا كمال وعدي ويدي شيء وحويان ودنك الصومالي لان هرنا وان وغهد لي دورشدا بعد 13 نوفمبر marka si loo eego doorasho la wada eegayay oo adduunka oo dhammi eegayay bay ahayd waanu ay wada eegaynay doorasho Somaliland lagu eegayay stage-ka taagan tahay inay sare uga sii qaado ama hoos uga dhigto ayaa doorashadii way dhacday waygii ay u dhacday sida nimankii international observers ka ahaa yimid ay ka hadleen si fiican bay u dhacday bay sheegeen laakiin intii aan shaqadooda ahayn marka la eego waxay noqotay doorasho ina kala qaybisa oo publishingka maanta Somaliland laba qaybood ka dhigtay koox iyaduna ku doodaysa in la maroorsaday oo laga boobay iyo koox iyaduna ku doodaysa inay si sharciya wax u dhaceen marka xitaa waxaan weli ilaa berigii jabhaddii SNM marka laga soo bilaabo ilaa maanta maan arag weli meel ay Somaliland shacabkeedu ay iskaga soo yara horjeesteen oo tan maanta ka horeysay tusaale haddaan kuu soo qaabto waddanka iyagan Ingiriiska meelo fara badan magaalooyin fara badan baa lagu qabtay xaflado oo loogu hambalyeynayay madaxweynaha cusub xafladaha dhacay lama wada joogin oo sidii kuwii hore la isugu wada iman jiray la isuguma wada imanin oo dadkii waxaad moodaysaa side kaliya uu yimid kuwii kalena ay gaar u cadhaysan yihiin nasiib wanaag inkastoo mid aan arkay oo inaanay jirin wax macni ama laga baqayo maanta oo rabshad ah oo inay ka dhacdo waddanka aan marnaba laga baqayn laakiin haddana waxay noqotay polarized inay ka dhigtay society ay kala qaybisay marka wallahi siday u dhacdayna anigu mid baan aaminsanahayo doorashada waxa la yiraahdaa sida xor iyo xalaal kelmadaasan qeexaa had iyo jeer xor iyo xalaal macnaheedu waxa weeyaan haddii waxyaabahaasi ay dhacaan xalaalnimadeedu way tagtaa waxyaabaha ay doorashadu had iyo jeer xalaalta kaga tagtana qaar waxoogaa baa dhacay qaarkood waaba la leeyahay waa qaar minor bay ahaayeen laakiin qaarkoodna aad bay u waaweynayeen wixii dhacay marka doorashadaas anigu sidaasay horta ila tahay inay tahay doorasho dadkii kala qaybsan aad baan idin salaamayaa maxamed iyo injineer kaba anigoota waxay ila tahay doorasho waxay noo dhacday taariikhiya doorasho waxay noo dhacday mastawihii aynu ku lahayn wadamada caalamka kor u qaaday doorasho waxay noo dhacday imtixaan ahayd oo aynu ka gudubnay dunida Afrika markaad aragto doorashooyinku waa ku dhibaato markii aynu inagu doorashada qabanay November 13 laba wadan oo ilbaxnimo iyo taariikh badan lahaaba isku haystay doorasho wadanka Kenya iyo wadanka Zimbabwe labadaas oo yacni dunida oo dhani ay indhaha ku haysay in Somaliland ay sidii oo kala noqonayso horta waynu ka badbaadnay oo waxay noo dhacday doorasho xalaala one man one vote waa run maxamed oo ku raacsanahay midoo horta doorasho markay dhacdo xanaf baa timaada dadkii way kala durkaan divide baa yimaada oo wadanka Mareykanka joogo
doorashadii 2016 kii dhacday engineero waynu la soconaayo wali wadankii Mareykanku waa kala qaybsan yahay marka way jirtaa doorasho markay dhacdo waxyaalaha dimuqraadiyadda downfallkeega waxa kamida wali umadu inay kala qaybsanaato waa runtaasi waxa doorashadii de markaa way yar keentay in dadkii ay yar kala campaignkii xanaftiisii laakiin overall doorasho xalaal ay noo dhacdo walaalayaal dadkeeni way foodgareeyeen one man one vote sharaf waxa in la qadariyana saddexda habeenimo u kacay inay foodgareeyaan waa inaan dididkoogii iyo niyadoodii wanaagsaneyd ku taageerno oo tusnay inaynu wax qabsanay institutionskeena waa inaynu dhisnaa ma waa run institutionadeenu laakiin doorashadeenu walaalayaal si fiican bay u dhacday dadkana waa la dhiiri geliya bari waynu ka sii fiicnaanaynaa laakiin markaan eega anigu overall markaan grade gareeyo baan siinayaa runtii baan siinayaa oo kamay dhicin de one man one vote Kenya imika la isku haystaa wali Zimbabwe baa malaha dhowr bilood ka bacdi doorashadii xoog odaygii lagaga wareejiyay inaga taas ma dhicin walaalayaal markaa de expectation keenu waa dhaafay halkii in laga filayay guul bayna inoogu dhamaatay baan aaminsanahay waayahay maxamed xaashi waxaan kugu bilaabayaa markii doorashadu ay dhacday wiigii la hakiyay la sugayay natiijada waxay adeegsadeen dawladdu ciidamada lagu yeero RRU marka maxaa loo dhigay ciidamada xaafada gaar engineer wad mahadsan tahay waynu maqalnay wararkaas oo habeenkii ugu horreeyayba waynu maqalnay in ay dhaceen in ciidan la adeegsaday oo power la adeegsaday had iyo jeerna sida uu sheegayo saaxiibkay Fuad waxyaabo badan baan Fuad isku raacsannahay markaan had iyo jeer la sheekaystay aan arkay fikradiis waxyaabo badan waan ku yara kala duwannahay horta critic wax la yiraahdo u fiican yahay critic wadanka wax uu wanaagsan in critic lagu noqdo sida ay wax u wadaan oo de la criticize gareeyo oo la yiraahdo state-ka waa in la challenge gareeyo state-ka haddii kale state-ku had iyo jeer powerkiisu wuxuu noqdaa excessive in dadka uu isticmaalo uu aad u weynaado kolley waynu la soconaa gobollo fara badan iyo magaalooyin fara badan sida magaalada Burco Hargeysa xaafad kamida Ergaabo xaafad kamida intaba warar aan lagu farxi karin oo aad u liita waa laga soo sheegay adaanad la sheegay ba engineer Kamal ciidanka RRU way jirtaa way dhacday ciidanka RRU waxa weeyaan markaynu eegno institution ahaan sida uu Fuad imika sheegayo kale inaynu hay'adaheena ilaalino weeyaan laakiin ciidankan horta waa ciidan aan la garanayn wax loo sameeyay waa ciidan ay dawladda shisheeyeen gacanta ku hayaan oo ay iyagu maalka siiyaan waa ciidan argagax ku socda hadii jiro dadka argagaxiya waa ciidan uu dawladdu u isticmaasho had iyo jeer waxyaabaha iyaga qalabaadka way wax weeyaan marka meel ay ka dhacaan magaalada wax problemi ciidamo kale gaar aynu leenahay inagu dhisanay oo bilays iyo waxbaynu leenahay inay wax kuwaas inoo qabtaan bay ahayd laakiin RRUD oo wax la yiraahdaa waa over judicial oo ka baxsan sharciga oo ku dilaya wax si sharciga ka baxsan ku dilaya oo dadka ku dilaya oo macni aan laba cali hadhow isweydiinin wadamo badan baa imika Afrika oo Mareykanka iyo dhulkaas ay ka sameeyeen wadankan inagu xigay Ethiopia way leeyihiin waa tan la yiraahdo new police miyaa la yiraahdaa waxyaabaha ay sameeyaan had iyo jeer aadka looga qayliyo inay horta waxyaabahaas dhacaan waa qaar jira Fuad mid baanan kaga soo horjeedaayo ku diidanayo Kenya oo kala tusaale u soo qaatay Kenya doorashadii ka dhacday way ka yara xun tahay oo Kenya oo kale laba mid ahayn inaga wadanka kaliya isku mid ka yihiin waa wadankan Honduras la yiraahdo South America sida aniga ila tahay tii ka dhacday exactly waa yara same because dawladdu way eeg markii doorashadu dhacday ninka mucaaridka haysta ayaa kala ingareeyay inuu isagu horeeyo
dabeedna commissionkii doorashadu way held gareeyeen natiijadii inay sheegaan mar haddii la held gareeyo natiijada oo waqtigii loogu talagalay in la sheego dub looga dhigo waxaa yimaada had iyo jeer in xitaa is-aaminaadii meesha ay ka baxdo innaga mushkiladda keliya ina haysatay taase midda kale fu'aad sida uu sheegayo dadku inay kala qaybsamaan oo xanafi ay timaado xanaftu waa hadday ku base garaysan tahay ideology oo dadku ay ku kala tagaan ideology mabaadi ay kala aaminsan yihiin ay hadhow ku kala leexdaan waxaabay keentaa wanaag oo problem ma keento laakiin innaga waxaynu ku kala leexanay inuu ku kala qaybsanay qabyaalad reer balaayo wax noocaas oo kala labada xisbi ee wadani iyo kulmiye labadooduba way ku koraangareeyeen way ku ololeeyeen markii hore qabyaaladaada foolxun oo aada foolxun markii dambena way isku qabsadeen qabyaalad imika for example oo kale goobaha ay soomaalida ay reer somaliland ku sheekaystaan haddaad u fiirsato magacii somaliland fu'aado waa laga tegay meelo badan ba waxaad arkaysaa dadki inaanay somaliland ba lahayn waxay leeyihiin jeegaantii iyo waa jeegaantii oo caynkanay tahay waa macnii habeen dhawid wallahi niman baan dhex galo waxaan ku waryaanaya magaca ka tegin war magaca ka tegina barta magaca somaliland horta ka tegina waxay iyaguna u bixiyeen qoladii jeegaantaa isdifaacday oo kuwii kale waxay u bixiyeen xeeryaan iyo rooxaanti macnii marka kan wuxuu doonaya labada nibe marka meeqaamkii state-keenii waxaad moodaa inay arrintii hoos u yara dhigtay marka anigu horta intaasaan kaga baxayaa inay dhacday way jirtaa cid ka daba tegaysaana ma jirto anigu imika urur baan ka nahay xubin aanu halkan ku asaasnay ingiriiska oo la yidhaahdo somaliland observatory group waxaanu monitor garaynaa oonu monitoring ku samaynaa every single thing dhaca xagee ka dhaca xagee wadankii mise ingiriiska waxa weeyaan ingiriiska weeye fadhigiisu laakiin waxa weeyaan online bay ilaa 100,000 oo qof can you believe ayaa memberska 100,000 ayaa memberska waxa oo adduunka oo dhan kala jooga miitinaanu leenahay wax gudaha wadankaanu ku jirnaa dawladdaanu ku jirnaa xitaa waxaanu samaynaa in aanu monitor samayno inaanu monitor garayno markii hore waxaanu ku bilownay musuqmaasuqa sidii wax looga qaban lahaa inaanu monitoring ku samayno haddana imika sheekadii way dhaafto musuqmaasuqu dee dhowr meelood buu galaa powerkaba waa la musuqmaasuqaa lacagtoo keliya lama musuqmaasuqa marka inaanu taa lafteeda ururno warbixinaha aanu soo saari doono kulley wax wanaagsan oo dad badan ay ka helayaan ma noqon doonaan insha allah biidnillahi kariim laakiin anaga waa naga critic inaanu noqono critic oonu criticize garayno administrationka markaa jira kolba jooga Hargeysa inuu markuu ku doodayo inuu isagu yahay ceebka salim inuu isagu yahay ka keliya wax qabanaya inuu isagu yahay sida uu ku magacaabay Muuse Biixi Cabdi wasiirada durbaba waxa ka bilaabantay hadalka ka soo bilaabmay xitaa Kamal qaar baa la sheegaya imika cabinetka ka tirsan rakamidi they can't even write and read qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena qaybta ugu dambaysa wasiirada ka hadli doonaa ama su'aashan siiyo aan ka jawaabo qaybtiisa kugu soo celiyaa su'aasha aad baa u mahadsantahay engineer horta ma maqal ciidamadu horta waxay noo ilaaliyaan nabadgelyada qaranka ciidamadana inaynu mar walba ilaalino oo aynu difaacnaa waa sharaf aniga nin walaalkay askariya oo ciidamada ah oo difaaca qaranka Somaliland runtii masha Allah mar walbana yani waan u duceeyayo in Ilaahay nabad yeelo oo qarankaasi uu ku nabad yeelo oo naftiisa iyo ciidamadaba Ilaahay nabad yeelo horta inaynu raggan askarteena niyow meel kasta aynu joognay inaynu qadarino oo aynu u mahadnaqnaa waa muhiim ciidamaduna waa nabadgelyada ilaaliyaan oo inay meeshii la isiraahdo dhib baa ka iman kartaba in la ilaaliyo la contain gareeya waa nabadgelyadeena ku jirta waa sida wadanka madda way ilaaliyaan wadanka ba muuqta mandaqadan aynu ku noolnahay waa meel waxa weeye runtii aad u halisa marka ciidamadu hadii meelaha la isiraahdo waxbaa ka iman kara nabadgelyo ahaan loo geeyo dhib uma arko in kastoo dhan maqal anigu oonan maqal laakiin dhib uma arko dadka la laayay anu weeda waxaan ku saaray
xisbiga wadani iyo raggii meediyaha isla soo taagay alaabaa la xaday oo maalintiiba habeenkiiba markay maanta isla taageen habeenkiiba rabshadu bilaabmatay iyagoo og meeshani inay tahay in dee fidna ninkii kiciyaba laydin nacdale ha ku dhacdo horta fidnada way kiciyeen oo markii raggii buugga soo saaray ayaa fidnada kiciyey dhalinyartuna markaas ayay qayliday askartani rag qalabkii iyo wax ma haysto nin dhagax lala dhacaya dee u isdifaacayaa laakiin meelaha ay u baahannahay qaran ahaan inaynu adkayno ciidamadeena qalab u xidhno waayo waddankeenu waa wada dhagaxaan weeyaan ninka askariga 5 dhagax madaxa loo geliyaa dee wax xanaaqaya u isdifaacaya ma garanaysaa markaa toban ka xumaay dadkii dhintay tacsi baan u dirayaa iyo reerahoogiiba runtii aad baan uga xunnahay laakiin waxa weeyaan inaynu nabadda ka shaqayno caruurtaa dhimatayna waa caruur inaga wada dhimatay runtii tacsina waan u diraynaa reerihii mar horena waan u dirnay laakiin walaalayaal ciidamadu nabad mooyaane inay ummadda reer Somaliland caburiyaan looma sameyn waxaynu ku badbaadnaa waa ciidamada noocyadooda kala duwan RRU-duna waa ciidamo si gaar ah u tababaran oo loo tababaro qoladan argagixisada ee dhibka qabtay xamar iyo wadamada jaarkeena halista kuwa ragii ka hortag lahaa waana taaynu ku helno runtii taageero badan oo ka qayb qaadano nabadgelyada wadamada jaarkeena iyo caalamkaba marka RRU-du waa qayb ka mid ah runtii institutionskeena oo sidaa u badan ma laha badmaadsanta wallahi anigu waxaan maqlay RRU intana siiraan yahay ayaan filayaa hadaan khaldanayn inkastoo dadkan ay leeyihiin waxa u badan reer kaliya RRU-da laakiin waan ka soconaynaa waxaan u galaynaa qaybtan wasiirada uu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi wasiirada uu magacaabay wuxuu magacaabay 23 wasiir Soomaaliya intaan hadaan khaldanayn waxaana u badan labada reerood ee jeegaanta ay u bixiyeen ayaa u badan wasiirada xoogooda marka bal maxay kula muuqataa Maxamed Xaashi in aad baad u mahadsan tahay walaahi waa arrin very important ah inaynu ka hadalnay tahay doorashadu markii ay polarized ka noqotay aadka lagu dhici waayay in commissionkii ku dhici waayay inay ku dhawaaqaan mushkiladu dhacday markii dambe Cabdiraxmaan Cirro ogolaadu green light ka bixiyay lagu dhawaaqay markiiba waxa la arkay inay reero kamid ah reeraha degan Somaliland ay guux ka bilaabmay ninka la yiraahdo Muuse Biixi wuxuu bilaabay kulan wuxuu la kulmay reerka la yiraahdo Garxajis ونعبها هنا مجا قبائل كذا مجا عابو لكن ويكفر ويدي واي سجيبة الدولة ده مدحوين أهامك وقابلة سداس أيو لا كل ما قالوا واحد تكتي عرق عابو واحد هذا شربان عرق عابو فخبرنا قالوا دي كلاك الصواحد ده يقول لا كل واحد يقول هذا وأنا كنت عيننا وأنا نكو قرب قلنا دولة ده هو نكو قرب واسلوب باش اسمه مركع واحد قيسة أوكي لكن مدحوينه waxaanu ka codsanaynaa wadankii waxba dhacay waxba inagu dhacay waxaan inagu dhacay inaad marada dhexda ku xidhato oo aad u hub qaadato sidii aad arrintan u baabiin lahayd ee u joojin lahayd sidan ay dadka kuwa ceerigaaba maanta tagay bay yiraahdeen waynu ka guuleysan doonaa haddaad deen fariido oo dalkan cadaalad ku wadaya noqoto inaga ka guuleysanayna haddii laakiin aad noqoto nin cadaalad ku wadaya wadanka iyaga inaga guuleysan Muuse wuxuu u jawaabay odayaasha waxa ay iga dalbanaysaan waa maxay ee u malaynaysan inay wax ku hagaajin karo waxay ku yiraahdeen number 1 waxaad sheegantahay laga baqanayo waxaan doonaynaa inaad gacantaada ku burburisaada madaxweynaha inaanay reeruhu ay ku sinaadaan oo sheegan damba la maqan maalintii uu dhaartay Muuse khudbadiisii wuxuu ku soo daray waxyaabaha aan ka wada hadalay odayaasha waan fulinaya dabadna rag badan baa analyze gareeyo waxa la yiri wallahi ninkii Muuse mar haduu waan fulinaya de haduu wax wanaagsan qabto ka buurta fuulayo ka soo dagun bay sheekadu noqonaysaa ayna waalid waa kan ninkii de wax wanaagsan qabanaya haduu laakiin qaban waayo taasi mushkilad bay noqonaysaa
dowladdii ugu horreysay uu soo dhiso sidaad sheegtay 23 weeyaan halkan aan ku hayaa marka la percentka la xisaabiyo 65% waxay noqotay inay noqdaan jeegante 35% ayaa u qaybsan beelaha intooda kale oo weliba controversial midhana maxamed kaahin oo aad u magacawday wasiirka arrimaha gudaha there is a reason behind it why baad ugu magacawday waxaad ugu magacawday ujeeddaa jirtaa in ciidankii wixii uu gacanta ku qabto wixii oo dhan marka ninka la yidhahdo muuse hadda odayaashii ay maalintii wada hadleen way ka yara hadda iyadoo wixiiba bilow tahay haddana waxay yidhaahdeen wallaahi ninkii kuma qabno wanaagii aan islahayn arrinta waa ku qabtaan marka si loo eego wasiiradii waa caynkaa horta xaggooda teeda labaad waxa weeyaan meritka waxaa la yidhahda meritka ay leeyihiin individuals shakhsiyaadka wasiirada lasoo magacaabay marka qof loo eego anigu ma wada aqaano xitaa muuse qaar ma yaqaana le muuse qaarkood ma yaqaano yaa u keena markaa dan aqoon markaa dan aqoon muuse magacaabay markaa waxaan maqlayay marka laga sheekaynayo ninka la yidhaahdo magaciisa ma aqaane ninka reer Australia ah ee wasiirka difaaca laga dhigay suldaanka keenay baa la yidhi warsangeli suldaanka uu keenay waxay markiiba maalintiiba waxa la soo geliyay suuqa cajalada uu ka hadlayo isagoo maxaa la yidhahdaa maamul goboleedkii ay ku dhawaaqeen maxaa la yidhahdaa qolada warsangeligu magaca lahaa magaciisa waan ilowsanay isagoo ka hadlayo oo leeyahay dagaal gallo oo wax noocaas ah ayaa cajaladihii markiiba la keenay bacni markii ugu horeysay hargeysa yimaada weeyaan waa markii ugu horeysay xitaa mabda'iyan Somaliland inuu soo noqday oo uu aaminay oo wixii hore ka baxay ma xataa xitaa muuse laftigiisu waxa la yidhi makuunbu ku warhelay inay arrimahan ay jiraan teeda labaad meritka waxaa la yidhaahdo qofkan aqoontiisa halkuu gaadhsiisan yahay anigu mararka qaarkood marka la yidhahdo ninka wasiirka noqonaya waa inuu yahay ugu yaraan jaamacad fikraddaa waan diidaa waayo waddankan aan joogay iminka ingiriiska soo madar waxaa laguma xidho ninka laborka haysta Jeremy Corbyn mabuu gelin jaamacad high school daas waddanka waxaa ka soo noqday prime minister ninkii loo dhintay John Major he was a high school boy mabuu gelin ba jaamacad muu gaal anigu ma eego inuu qofku jaamacad soo dhigtay iyo waxaa waa qalad waayo kuwii westernkii horu maray baabaan waxaa eegin laakiin important waxa weeyaan qofku can he read or write that's the basic thing qofku ma akhri kara waxna ma qori kara horta marka ugu horeysa marka labaad ability leader nimo ma leeyahay inaan intaas u leeyahay marka waxa la sheegayay ku qaadnimo ku jira cabinetku inaan qaarkood waxna akhrin waxna qorin and I don't know war ma hayo ma garanayo ma cadayn karo wali anagu waan ku maqanay baadidooda waxa kaloo jirta wasiirada waxa la yidhi qurba joogta waa laga ilaalinayaa that was a good idea marin gudaha ayaa loo badin doonaa qurba joogta waa laga yareyn doonaa waayo hore waxa dhacday marar badan in qurba joogta la eedeynay waxay u badan yihiin qurba joog hadana oo qurba teeda kale intii hore dawladii hore ku jirtay Siilaanyo 7 sanadood oo cabashada jirtay laga cabanayo war intii midnaha lagu soo celin ay odayaasha xitaa ka wada hadleen nimankii hore iyo waxba naga soo noqon dawladda kula wadaya waxa soo noqday 3 kamid ah madaxtooyada maanta Hargeysa wasaaradihii iyo administrationkii wixii way isku yar dhaxdaadsantahay oo Maxamuud Xaashiyo wasiirka madaxtooyada ah wasaaradii laguma dhawaaqin in la baabiyay oo lama sheegin in la baabiyay ama meel kale la geliyay laakiin Maxamuud Xaashi waxa ka tirsatay agaasime it's quite something an yara dhacay agaasimihii baa ka tirsatay isaga oo isagii dabadna sii daysay macni waxa weeyaan inuu agaasimo wasiir ka tirsado malaha siday la tahay laakiin haddana dhaliilo fara badan ayaa loo soo jeediyay haddana inaynu taageerno markaan u soo noqdo arrinka Fuaad waynu ku qasbanay in la taageero hadduu fail garoobo Muuse he fail isaga fail gareey haddii uu socdana isaga laakiin miisaankii lagu miisaami lahaa inuu fail garoobay iyo inuu success noqday inaynu sadgarayno ayaa inaga waajibkeenu yahay inuu dejinno oo inuu idhaahno
waayo muuse uu fail garoobay haddaan iska idhaahdo وانا كنت رئيسي waa qalad عدين وين intaasaan kaga baxay saasha هي فؤاد adiguna maxaad odhan isla su'aasha horta dawladani waa dawlad cusub sida maxamed ka dhawaajiyeyba dawladani sheegaan baa u badan iyo waxaasaa u badan hortaan uma aaminsani gobol kastaba 4 wasiir baa la siiyey gobolada qaarkoodna 5 wasiir regions baa loo qaybiyey gobol ahaan baa lagu qaybiyey حقا معارض كوا وطنيا لما وزاردودو مهيم سيو تي مالية دايو عافمات كو قدرايو وذاكو سيفي عبد بحشا وطني ما يعقمت أي والله وذاكو سيفي عبد بحشا وقيديي هي معارض كانوا سوتشي تيفونتي معارض كو لبدا وليبا وزارة داي آدو همية وزارة مالية داي حيد إلو ديبو نين معارض كا tina waa laga yeelo wasaaradda maaliyadda waa loo dhiibay wasaaradda caafimaadka doonayeen waa loogu daray laba wasaaradood oo ay la siiyay oo toodagu si fiican uga hasho qaybiyay region ahaanna waa loo qaybiyay mid sawaano midna waxa weeyaan inaan ogaano Muuse hadduu fail garoobo qaranka Soomaaliland oo dhanba fail garoobay ma joogna maanta waqti aynu madaxweyne aynu leenahay oo fail garoobay waddankeenu critical situation buu ku jiraa crossroad baynu soconaa meel laba jida maanta sida wax kasta oo aynu ku kala duwanahay waxa ka weyn waxaynu ku midaysannahay oo qaran Soomaaliland oo madax bannaan oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa walaalayaal waxa weeyi waan qabaa anigu sida Maxamed ninka hor leaderka noqonaya inuu yahay nin hogaamin leh oo leh dulqaad oo leh wuxuu xeeriyo oo aqoontiina wata kartina leh waan la qabaa haddaan idhaahdo lama qabo waa been baan sheegayaa waynu doonaynaa rag hogaamiyayaal oo kartidii leh aqoontiina leh oo ummadda halkay joogaan hore uga wada wasiiradani waa wasiiro cusub madaxweynuhu siduu sheegay قبيل يا سلطان هل كان محمد وان كديدنا هو وزيرك كاشانديكا سلطان باكين ولا المجرتو وزيركم ما أقبلين نين وزير سلطان وحو كيني ساقا تشيبكيسا كفرتي إيا فكرة لغو بيريي أولوسو بانديكي لكن واح إنفلونس دولتكم لها سلطان لا مقعاب ويننو إيه فايدة دي خساري إيجا لكن متباجرتها دولتنا waa dawlad cusub dhowr bilood bay jirtaa 120 ka ugu horeeya haynu ka war dhowrno haynu madaxweynaha ag istaagno handhiiri gelino mucaaradkana waxaan ogolahay maxamed oo mucaarad hadaa tahayna mucaarad adagoo critique gareeya the facts-ka iyo nolosha ummadan Soomaaliland noqo yaynaan ku critique gareyn madaxweynaheena reebel baa intan qaatiyo reebel baa intan qaatiyo waa meel xun bay nageynaysaa laakiin ku critique-gaagu ha noqdo ballamihii uu qaaday ee qaranka u qaaday niyo ma fuliyay madaxweynaha iyo dawladdiisu barnaamijkoodii siyaasadeed ee shacbiga ugu talagalay ma fuliyeen kaa ku critique garee waana ogolahay mucaaradku inuu taa kula xisaabtamo inta laakiin taasi aynan jirin ee uu bilowga yahay madaxweynaha inuu haynu gacan qabano haynu er istaagno dawlad qiimo loo soo dhisay rag cusub baa ku jira waa runtii rag badan oo la soo celiyay qaar waa jiraan for technical reasons baa jira u baahan muhiima oo sida wasiirka arrimaha dibadda oo kale wali arrimihii baa jira heshiisi aynu galnay oo qabiyo ah oo u baahan inuu ninkii wali sii joogo ayaa jira wasiirka waxa barashada loo bedelo wasiirka gudaha oo nin aad u qiimo laha gobolada Sool oo dhanna aad u looga dambeeya waxna bartay runtii isna waxa jira hota wasiirku waa political appointee waa nin siyaasadeed meelaha qaarkood haddii aynu aragno inay
dan u tahay qaranka Somaliland in la daayo shay ama shakhsi waynu wadaynaa ilaa inta oo aynu helayno wax bedela ma garatay marka horta taasi labada wasiir soo noqday iyo waa special case oo labadaasi cudurdaar baynu helaynaa ragga kale way wada cusub yihiin in lala xisaabtamna diyaar baan u hayaa anigu waa runta waxbarashadoodu horta dee baarlamaan baa jira soo baaraya oo soo qoyn fasaxaya haynu eegna bal waxay u geeyaan waata yani dawladda cusub waxaad ku garanaysaa inay jidkii fiicnaa qaaday hanti wali ma dhicnin la yiraahdo nin walbaaba hantidaada waa inaad soo xeray sheegtaa waxaad hanti leedahay dhaqaale leedahay maanta haysato weligeed kamay dhicin waa waxa weeyaan jid xagga wanaagga loo qaaday in la yiraahdo wasiir kastaaba qabiilkaaga ha dhex fariisan oo shir ha la gelin waa yar fuaado aad baad u mahadsan tahay waan su'aashan kulli waxaan muraynayaa way aad baynu u wadwadi doonaa su'aashan injineerkuna ay naga raali ahaado halkaa markaad sheegayso wasiirada waxa ugu wanaagsan ee la qabtay inay ahayd in iyagii nin walba la yidhi declare garee hantidaada declaration waxaad haysato tan ma ku jiraa musabixiin uu hantidiisa declare gareeyo yes madaxweyne kaynku ku jiraan yaa oo ku jiraan maya waayo maxamed muuse waa la yara eedeynayay in doora may waa xanta way baradii ku jiro habeen dhaweyd baan arrintaa isweydiinay moogtay habeen dhaweyd baan isweydiinay markaa rag baa soo bandhigay oo yidhi isagu ka mid maaha laakiin hadduu ku jiro waan hadalkaagan qaadanaya waa absolutely waa walaal ku jira isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkuba golaha wasiiradana iyagaa u sarreeya lead by example baa la yidhi sheegana ma sheegayo nin suurtagal ma isaguna uu sheegayaa madaxweyne ku-xigeenku uu sheegayaa dhammaan dawladani way sheegaysaa walaal marka waxaan kusoo gunaanadaya arrinta waqti haynu siino dawladan wasiirada cusubna waqti haynu siino haddii markaa ay fail garoobaana ilaahay kama dhige dee aragtideeda waa laga yeelan laakiin intayna weli waxba qaban yaynaan dhaleecaynba weli in yar baan kuugu darayaa ninka la yidhaahdo fuaado wasaaradaha la soo celiyay oo kale waxaa tilmaantay in looga maarmi waayo for example ninka la yidhaahdo saacad cali share waa high caliber waa ninka ugu aqoonta sarreeya baan u artikalaan ka qorqoray isaga waa ninka ugu aqoonta sarreeya laakiin waa ninka ugu marka la eego cabinetka ugu liita ayaan anigu u malaynayaa fikradayda sababtoo ah muddadii uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland meeqamka Somaliland hoos u dhacay eedayn fara badan baa u timid heshiis kale ma jiro meel kale adduunka lala galay heshiiska weyn wadaogna waa kan imaaraadka lala galay heshiiskan imaaraadka lala galayna wuxuu noqday controversial buu noqdayo iminka warbixin aanu hayno qolada iyadan aan kuu sheegaya organizationka iyagana warbixin aanu ka hayno qoladan Yemen ku dagaalanta xuutiyiinta waxay balaangaraynayaan inay soo weeraraan oo balaankooda ka mid ah gantaalada ay riyaad ku garaacayaan barbara hargeysa uga dhow gantaalada ay ku garaacayaan weliba marka ay garaacayaan hargeysa hadday islaan caawa xabad kaliya ku soo garaaca dee waxay hargeysa iskaga celisay xitaa ma haysto wadadeega xaqiiqiyan laakiin isluudigu dee laki waaba lacag baabu waxaba loo keenayba hubkii la iskaga celinay labay ku rideen labadiiba midna meel cidlaabay ku dhacay midna hawaday ku qarayeen dagaal ayna shaqo ku lahayn oo ayna shaqaba ku lahayn oo shaqadeennaba ahayn ayuu ninka la yidhaahdo saacad cali shire horta inoo keen oo gurigeenni keen oo wax allaala waxaynu ka faa'iidaynaa ana jira waddankan imaaraadka la yidhaahdo maaha maalin horaan uga yar hadlay maaha waddan rule of law country maaha waddan ku dhaqma sharci maaha maxamed waan kaa dhex galay ma isagaa keenay mise waxaa keenay familiga siiraayo contractiga ah maya familigaa keenay oo ninkan isaga shaqaalun buu iska ahaa moogta isagu uu saxeexay oo qayb buu ka noqday
saxiixi imikadan laftigeedana sida fuaad sheegayo eeg fuaad baa bay noo sheegay imika horena waan u maqlay anigu iyagaa dalbaday in la soo celiyo imaaraadka laftigooda dalbaday inuu soo noqdo isagaa annaga wax iyagii garanayo wax iyabay yidhaahdeen macnihi ma aha dawlad by the people waa dawlad by the interest maya maxamedow saa maaha saa maaha walaalow hota xuutiyiinta iyo yamaniyiintu wax dagaaloo inaga dhexeeya ma jiraan sabab ay nagu soo weeraraan ma laha runtii tamaraha odhan walaalo tamar way leeyihiin oo gantaaladoodu wayna soo gaari may gantaaladoodu bahala yaroo xadka sacuudiga intay la yar fadhiistaan bay xagga yaree kale ka tugeeyaan waxa qiimo la sidaaya maaha awood ma laha laakiin walaal imaaraadku dalkeenna maalgashi weyn buu sameeyey saaxiibo caalamiyaynu yeelanay international areenihii baynu galnay hota eeg wadiiqada yar baa taweyn kugu ridaa la yidhi hota wax kasta oo qaran dekedeennu waa taa buumaysa berbera next 5 to 6 yearsna insha allah east africa oo dhan baynu qabsan doonaa central africa baynu geyn doonaa walaalow dekedeenni maalgashi badan iyo investment badan baa waddankeennii uga galay noloshii magaaladeeda berbera baa laga gartaa imika isbedelka intii ay dekadana timid isbedel weyn baa ku dhacay berbera oo dhaqaalihii berbera aad u koray oo dadka noloshoodii baa bedelantay oo dadkii baa shaqaale ku yeeshay ma garanaysaa marka oto walaalow tani cambaarayn inooma noqon mayso qoladiina mucaaradka bahashan faa'iido iyo waxyaalaha wax qabado dadkeena wuxuu taray weeyaan waxyaalahaana inaynu ku faano inuu dhiiri gelino weeyaan wasiirada la soo celiyay waa aniga kuu sheego wasiiro for technical reasons bay ahaayeen laba nin oo aqoontii iyo kartidiina le bay ahaayeen loogana maarmi waayey in la soo celiyo laakiin taladu waxa weeye anu mucaaradka su'aal baan u hayaa waxaan leeyahay war mucaaradow maxaad haysaan ood qaranka ku kordhinaysaan oona haynun mucaaradnimo dalkan loo qabtay oo laguhun qabataan mooyaane good boy maxaad haysaan maxaad dawladda ku garab taagantiin macnaheedu maaha un heshiis baa la soo galay macnaheedu maaha un wasiir baa la soo celiyay jeegaan baa la abuuray wixii negative energy-gan badani idinkaga galay ma arko wax tar qarankana wax ma tarayo qaranka waxa taraya maxamedow inaad istedhigaraysaan bal waxyaalaha dawladdu qabanayso kale haddii markaa ay jiraan waxay ka leexsan yihiin inaad si qiimo leh oo wadaninimo ku jirto inaad u dhistaan weeyaan barnaamijka haddaad haysaan ka duwanka barnaamijkana dawladdana inaad soo dhigtaan oo wadamada reer galbeedkan ku noolna waad orogtay mucaaradku waxay keenaan siyaasad ay leeyihiin ta dawladda tanaa ka fiicana dawladda bal eega dawladduna way tijaabisaa siyaasaddaasi bal mucaaradku waxay sheegayaan walaalkaa inoo keena baan idinku waanin lahaa qoladiina mucaaradka horta waad hagaagsantay qolyaha mucaaradkaanu nahay haddaanu caaridayno horta waxa weeyaan mucaaradku waxbuu saxaa adduunyada ilaahayna meel hasho hadday iska daa daldhan oo institution keliya aad dhisaysaa hadduu noqon waayo without critic hadduu critic ba yeelan waayo de wuxuunbuu iska noqdaa isagunbaa dumaa waxaa la yidhaha legacy xitaa kama tago arrintaa aad yaro taabatay walaal wasiirada markaynu ka hadlayno qof walba anigu inaan iska criticize garayo wuxuun iskaga idhaahda nimankan waa igu qalad adiguna inaad iska tidhaahdo un wax aanay lahayn oo credit aanay lahayn aad siiso qalad bay kugu noqonaysaa ninka imika tusaale nin keliya soo qaaday saacad caalish baa soo qaaday wasiirka arrimaha dibadda arrintan imaaraadkana waa soo qaaday saacad wasaaradda arrimaha dibadda anigoo keliya maaha cid waloo xitaa la shaqaysay baa sheegaysa isagaa xitaa qiray isagu uu qiray xitaa inay aada u hooseysa arrintii looga baahnaa inay istaagto way ka hooseysaa second arrintan imaaraadka
in waxa la isku raaco weeyaan oo la isu yimaado oo la mariyo dariiqii loogu talagalay wixii dalka dan u ah wixii aan dalka dan u ahayn in laga joogo oo dawladuna ay maqasho dadka laakiin dawladdu hadday tiraahdo Fuaado war annaga u aragnay waxaan inay dan tahay waxa jirta berigii uu ninka la yiraahdo xirsi uu ku jiray dawladda ayaa Turkiga la tagay Fuaado waxa la yidhi Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalladooda ayuu isagiiba hogaaminaya waxa institute ka soo baxay maaha wuxuu qaatay waraaqa institute ka soo qaaday ma jiraan wax la discuss gareeyo laga wada hadlay ma jiraan wax strategy uu nimankan ula tagayaa ma jiro albaabba inta hoosta la isaga soo xidhay ayaa Turkigii lagu yiri naga baxa markay baxeen wariya war wallahi ninka wallahi Soomaali abu ma goy kartaan wallahi Soomaali mid waay wallahi abu dabadna waa la isku soo xaraaqo wala soo kala wixina waa daldan iyo daddan aayahood inuu nin kali waxaan la soo socda maaha Ahmed Ismail Samatar baa ka hadlay oo wax loo baahan yahay strategy qorshe loo baahan ma garatay anigu taa ka hadlaya waxa weeye Saad Ali Shariif failure in my own view fikradayda waa failure waxa uu ku soo noqdo uu dawladda ugu soo noqdana I don't think inay meesha taalaba totally hadda keligii ma soo noqon waxa soo noqtay rag kale la soco wasiir kale soo celiyeen Soomaa hay'adii kale wasiirro fara badan baa soo maray wasaaradda arrimaha dibadda wasiirrada faraha badan lee soo maray intii Siilaaya joogay wasiirradii joogay baa ugu liitay waayo Maxamed muxuu ahaa ninkii Riyaale markuu joogay muxuu magaciisa ahaa Suudaan markii daba qabtay imikana kulmiye ku jira Fuaado magaciisa muxuu ahaa Raacir Gaabo wasiirka arrimaha dibadda ahaa Ducaale ninka hebel Ducaale ninkaasi markuu joogay he was absolutely fantastic xitaa meelaha uu tagayo dadka uu la hadlayo meelaha laga soo casuumin buu isagu saalada ay African Union ko aan laga soo casuumin ayuu intuu iska tagay saalada hore ay sii istaagaan madaxda mar ayuu iska fadhiisan jiray madaxda xogtan jiray oo annagu halkaas aan ka soconaayo xalalkaygi waa kana hooyo ma garanaysaa Maxamed Cabdillaahi baa ugu horeeyay Siilaay oo yimid Maxamed Cabdillaahi waa ninkii ugu horeeyay calanka Soomaalida hoos fadhiistay intuu Nairobi tagay calankii Soomaalida hoos fadhiistay markaas waliba markii la yiri Maxamed oo maxaad hoos fadhiistay wuxuu yiri waa mandaqada in yar baa inta waa ka baxaya Fuaado wuxuu yiri shirkaan fadhiisanay wuxuu ahaa shir laga hadlayo mandaqada reerkiisa waxa uu bixiyay isaga laftigiisa mandaqada uu bixiyay isaga laftigiisa waxa ka dambeeyay Maxamed Biixi Yoonis international body u shaqeynayay international body-gii iyo wadan yar oo aan la aqoonsanin oo caynkana waa kii ka dhamaanba waayay daan u Harvard markay macni way confused bay noqon Saad baa ku xigay ugu dambeeyay Saad waliba wadanka in badan buu joogay laakiin waa nin ka shaqeyn jiray private sector buu ka shaqeyn jiray aqoontiisu waa agriculture economist weeyaan diblomaasiyadda aan wax aad ka aqoonin markuu uu meelihii ku wanaagsanaa wasaaradda qorsheynta qaranku joogay waa lagu yaramaanay wasaaradda beeraha oo kale hadii la geeyo oo kale economics ka xitaa hadii la geeyo finance-ka waa laga yaabi lahaa laakiin arrimaha dibadda wuxuu noqday xitaa heshiisyada uu saxeexay baasha uu yara beed gareyn kar waay yarka baasha uu beed gareyn kar waay markii dambana waxaan oo dhan Maxamed Baasha Xaaji Xasan ninka la yiraahdo wareysanaya habeen oo dhageysanayay Maxamed Baasha wuxuu weydiiyay kelmad kaliya uu weydiiyay arrinta imika Yamanka aan sheegay Imaaraadku hadday inta airport-ka Berbera yimaadaan diyaaradahoodu ka kacaan ay weerar ka qaadan halka ka waran buu wuxuu yiri horta iskumaan ogin inay sidaas sameyn doonaan laakiin waa laga yaabaa inay sameeyaan waxay what you talking about waa laga yaabaa inay sameeyaan laakiin iskuma ogin inay sameeyaan maxad riskiga inta leeg u galaysa waayo aniga dhulkayga waxa laga weerari karaa meel aan u diyaar garoobo hadhow inaan aniga waxba iga imanay laakiin meel hadhow dhulkayga laga weeraro dhibaato iiga timid imika qoladan monitoring group-ka ee United Nations
Soomaaliya ka ilaaliya ama ilaaliya Soomaaliya oo dhan ka ilaaliya musuqmaasuq iyo hubka iyo waxa warbixintii ugu dambeeyay soo saaraan way tilmaameen in xitaa lacagihii la kala qaatay fuaado ay gacmo qalada galeen ay tilmaameen gacmo qalada inay ku dhaceen oo ay ina ka baasho kale toos bay u tilmaameen warbixintu uu ku qoran yahay in satellite pictures ay ka qaadeen airportka Berbera durbaba dhismihii socdo ayay sheegeen oo satellite pictures ay ku sheegeen waxyaabaha intaan daba galeen oo reportada ku soo saarayna ayay ka mid tahay macni waxa soo dhan markaad u fiirsato it's a very danger ma wax qof kaliya gaari karo dawladda waan u ogolay inay wixii dalkan iyo dadkan dani ugu jirto inay samayso laakiin wuxuu waa inay ku timaadaa wada tashi dhan oo ballaaran ma aha inuu nin kaliya ama xirsi oo waxa weey maxamedow aan ku waramo awla ota muwaadin baad tahay reer Somaliland inaad ka muujiso walwal iyo cabsi inaad ka muujiso heshiiskaasi inuu qaranka waxyeelayo iyo dadkeena xaq baad u leedahay sasaan hore kuugu sheegay wax dhibaato ah iyo wax uu inoo keenayo faa'iido mooyaane ma jirto tan arrimaha dibadda horta waa runtaayo wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland hawl badan baa u taala walaalogow haddaba oo mido anu Mareykan baan joogaa waliba mid gobolka Minnesota gobolkani magaalooyinka gobolkan waa gobolka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya maqasho meesha laga maamulaan jooga ilaa iyo waxa ku nool 100,000 oo Soomaaliya adu ilaa 80,000 25,000 waa reer Somaliland asala ilaa 30,000 baan gaaraynaa 50,000 waa reer Soomaaliya waxaan isku daynay inaan midayno reer Somaliland oo wadnaa guulna waan ku jirnaa inaan gaaro inaanu miiska u garaacno representative-ka iyaga oo elect officials-ka iyaga nidhaahno dad reer Somaliland aan nahay war dadka iyaga waddankaasaan ka nimid maxaad dalka iyaga tari kartaan oo politics-ku waa two-way street maxaad dadka iyaga taraysaa inaanu leverage ku samayno baan isku daynaa dhibka ina haysta waxa weeye reer Somaliland haddaynu nahay siyaasadii hoose iyo tii sareen walaalayaal isku qaldaynaa war haddaynu doonayno wasaaraddeena arrimaha dibadda inay fadhiidnimo ka baxdo waa in adiga iyo aniga iyo injineerka iyo cid walbaaba u midowdaa oo meel walba aynu joogno inaynu qadiyadda Soomaaliya ku xoojino waa inaynu u diyaar garownaa inaynu laymanka iyo gobol wadamada aynu joogno aynu la wada dhiig noqono aynu la cashuur noqono ee xuquuqdeena inaynu ka dagaalgano sidii qadiyaddan reer Somaliland ugu dhiso deglahay haddaan sidaas waddanka ma injaarku nahay imka Soomaaliya la yiraahdo idad inagoo kala ah baa runtii wada heshiisyada oo imika mid waxa jirta maalmo dhaweyd Turkiga safiirka Turkiga u yeedheen because of thank you very much waddanka iyaga wax qabatay waxinagu waxayna looga baahan yahay inaynu isku tiirsanaano oo aynu bal ka midowno qadiyadda ah in dalkan uu helo madax banaani waa inaynu midowna oo imika waxa dhowr jeer carabka ku dhufatay monitoring group committee walaal maxamed monitoring groupkaasi waxa sida haladaada ka dambeeyay only wuxuu sheegayaa negative-ka waddanka ka jiro inaad report gareysaan ama aad qortaan war maxay idin diiday inaad monitoring-ka u report gareysaan international-ka waddankeenu wuxuu horumarku gaaray war maxaad u midayn leedihiin imika waxaad tiri shirad baa la qabtay maalmo dhaweey oo lagu mahadnaqayay madaxweynaha cusub war maxay idin diiday as a community ingiriiska idin inta siyaasad iska dhigtaan inaad midowdaan si aad dalqarankeennan oo ingiriiska aad ugu badantiin oo dalkeenniina xukumayeen waxay diiday inaad midowdaan oo tidhaahdaan ingiriiska maxaa Soomaaliya noogula cararaysaa annagu inaan sidaas samayno
absolutely what saacadii ka dhawaa inagoo dhan baa wada eedaysan arrimaha dibadda markay noqoto baya walaalo horta waad saxantay absolutely waad saxantay mid baan ku odhanaya laba su'aalood bas yaro kooba kaaga jawaabaya waan ku dheeraanay masaashana aan ku dheeraanay walaalo xagan organization-kayga manager-ka anigu ma yihi journalist horta laakiin journalism-ka ayaa wuxuu leeyahay theory ka dhaxaysa buu leeyahay never tell for example imika the prime minister-ka waddankan aan joogo oo kale Saka, she woke up in the morning, she came to the office, she did the job she was supposed to do. Markay shaqadii qabatay wixii ay ku wana ay qabatay shaqadii si wanaagsan u qabatay ninka journalist-ka ahi ma amo. He doesn't care because she did what she had to do. Akata laba baanay xitaa TV-ga laga sheego way waxaad noqonaysaa guulwada ayay noqonaysaa haddii wixii ay qabatay la sheego horta dhegeysa laakiin waxa la sheegaa dotska meelaha dotska haddaan si kale kuu sheega aqoontaydu marka la leeyahay managementka marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa haddaad samaynayso oo kale for example oo kale imika organization baad doonaysaa inaad bedasho jihadu u socdo wariya jihadu waddanku waa organization jihadu u socdaa doonaysaa inaad bedasho waxa la yidhahdo kulli qof waa basic baan marinaya waa inaad taqaana waxa la yidhahdo SWOT analysis waa SWOT SWOT analysis ku S waxay ka taagan tahay strength W waxay ka taagan tahay weaknesses-ka O waxay ka taagan tahay opportunities-ka T waxay ka taagan tahay threat SWOT analysis organization-ka waxa la analyze karayaa afartaa shay marka aad analyze garayso meelaha opportunities-ka eeg iyo strength-ka meelaha strong ay tahay waa la drop garaya waxa la address garaya weaknesses-ka iyo threats-ka si aad wax uga qabato waxaad wala deegada walaal markaan anagu aan waxaan ururinaynaa meelaha ay dhibaatadu jirto ma ururinayn waayo anagu I am not here inaan hadhow ammaano presidentka Soomaaliya I will never waa la doortay Muuse Biixi mar haddii la doortay isagaa yidhi dadkan inuu shaqada qabanayo hadduu noqdo if he become the best I'm not going to medal ma siinayo bilad ma siinayo wuxuu qabtay shaqadii loo doortay that's it laakiin markuu fail garoobo I have to tell markuu fail garoobo wana sheega wana idhaahdaa Muuse you fail nothing mad samayn marka walaalo wasaaradda arrimaha dibadda markaanu tilmaamayna dhibaatooyinkeeda waxaanu u tilmaamaynaa waxaanu ururinaynaa sidaad sheegtay weaknesses-ka iyo threat-ka ayaan ururinaynaa hadda maxamed hawaynu ku dheeraanay annagana waxay tahay shaqadayadu inaan wixii dalku wanaag qabtay sheegno waa guul wadanimo deetaas wanaaga dalku waxa lagu sifeeyaa guul wadanimo may haddii aana tilmaamin waxa uu madaxweynaha wanaagsan qabtay haddaanad sheegin dee waa khalad iminka wadda sani reer galbeed joogan waa tahay laakiin dee naagta Theresa May prime ministerkiinu dee waxay wanaaga samaysa waa la sheegaa iyo isbedelka dhaqaalaha iyo shaqo abuurka iyo investmentiga iyo powerka ay yani international arena iyo waa la sheegaa wata inaguna waa inaynu sheegno laakiin mid waynu isku la raacsanahay mid waynu isku mid baynu nahoo ah wasaaraddeena arrimaha dibaddu inay sidii loogu talagalay ahayn waynu isku raacsanahay waxaa loo soo celiyay marka mar haddaad igu raacday maxaa loo soo celiyay ninkii joogay dhowrkiisa noo maya dhegaysahay wasaaraddu maaha wasiirun keliya kuma xidhnaa ku leehay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland wasiir keliya kuma xidhnaa waxay ku xidhan tahay reer Somaliland oo dhan oo dagaalka meel ka wada gala oo qurbo iyo gudaba waliba qurbo joogtu waana failinka ugu weyn qurbo joog buu ka yimid oo iminka ninkii Ingiriiska idin fadhiya safiirka ahaa oo iyo 5 sano markuu joogay maalintii la waa xilka wareejoon buu shaarkii wada kulmiye dhigo wadan uu xidhay moogta ninkaas ma garanaysaa cali sabaha cali
markaa waxa weeyi in waana waxyaalaha waxaanu la kulanay mar nin la yidhaahdo Kit Ellison oo ah nin u jooga gobolka Minnesota Washington DC waa ninka muslimka wuxuu nagu yidhi waad garan kartaa waad yaabaysaa ma doonin halkaas sheego laakiin maalinaynu saranaan ka sheekayn doonaa arrimaha laakiin waad yaabaysaa ka labaad governorku wuxuu yidhi Somaliland dhiimay waa uu markaan u sheegay Somaliland oo maxaa ii arkaynay dad markaa eed baynu wada leenahay reer Somaliland innaga ayaa xagga walaal waddankan imika Ingiriiska 10 sano ka hor ayaanu isu nimid Fuaado waxaa la yidhi nin walba MP-ga xaafadada la xidhiidh nin walba MP-ga xaafadada la xidhiidh bale oo waxaa tiraahdaa qadiyadda Somaliland iyo hawsheeda waa intaan Cabdilaahi Yuusuf la dooran camal nin kasta waraaq baa lagu soo jawaabay warhaya waraaqda idin lagu soo jawaabay ninkas isku siba u soo wada hadleen MP-yadii waxay yidhaahdeen maxay tahay MP markaa noo yaro macnay MP waa member of parliament okay waa nimanka in parliament house of commons ka ku jira labada guriga Ingiriiska u taliya lords iyagu elected ma aha election kuma yimaadaan laakiin kuwan representatives MP wakiilada MP dabadna nimankii waxay yidhaahdeen dawladda nin waliba wuxuu soo qoray uu yidhi aad baan uga xunay Somaliland xaaladeeda waan la soconaa caynka arrinka aqoonsiga bay arrinka aqoonsiga waxaanu ognahay bay yidhaahdeen in Security Council-ka United Nations qaraar baa ka yaala Soomaaliya bay yidhaahdeen qaraarka Soomaaliya ka yaala ma jabin karaan sidaa darteed dawladda Ingiriisku waxay kala siman tahay wadamada adduunka oo dhan inay arrinta Soomaaliya laakiin waxaanu dawladdeedu waxay hore u sheegtay inay wadamada Afrikaanka u daysay inay Somaliland iyagu horta go'aan ka qaataan wala deeqada wali 10 nin eegada markaa ku leeyahay guulwadanimada 10 nin oo aqoon-yahan oo Soomaaliyeed Somaliland u dhashay aamin intay soo fadhiistaan meel waxyaabaha Axmed Ismaaciil Samatar dhowr jeer ka hadlay ay soo wada fadhiisteen miiska soo fadhiisteen yidhaahdeen wareedha caqabadahan hortaagan horta maxay de waxay Fuaado imika soo ma ogid waddan kaliya oo Somaliland aqoonsan karaa inaanu jiro in marka la eego sharciyan sababtoo ah resolution-ka uu Budrus Qaali baa United Nations ku xidhay resolution-kiiba ilaa imika yaala wuxuu dhigayaa resolution-kaasi Fuaado in la ilaaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed horta walaal dhageysto ayuu dhigayaa waddanka maanta Djibouti hadday ku dhawaaqdo Somaliland waanu aqoonsanay Security Council-ka looga yeedhay waxaa jabisaa la leeyahay hadduu Ingiriiska iyo kuwa Barmanka iyo Mareykanka hadday doonayaan iyagu inay aqoonsadaan resolution-kay odhanayaan soo qaada soo mooyin Security Council soo fadhiistaan ayuu leeyahay soo qaada resolution-ka miiska soo dhiga qodobka dhigaya midnimada ha laga saaro meesha marka qodobka laga saaro waa free marka wadamada adduunka si doonaan marka ka yeelayaan laakiin maxaa loo waayay 2 nin ama 3 nin oo reer Somaliland ah oo 15 xubnood Security Council-ka xitaa mid oo u galo oo arrinta u bandhig wali ma dhahay never Cabdirashiid Sheekh Xasan iyo Cabdirashiid ninkii wariyaha Cabdirashiid Soomaali ninkii marna Uxud madaxweyne ku-xigeenka ka sharaxnaa Cabdirashiid Moohay Cabdirashiid ninkaas oo kaliya 2-3 jeer ka hadlay wuxuu wareedha albaabka kale inuu garaacayna horta albaabka maxay u garaaceen waxaan ila dariiqeeda hadaan la marin waynu khaldamayna waxaan imika uga jeedaa Saad Cali Sharaf muu soo bandhigay imika maalintii ugu dambeysay Hargeysa wuxuu yiri muxuu yiri 1 milyan signatures baan qaadaya 1 milyan signature code muxuu ka wada markaa loo gudbiyay international community-ga muxuu ka wada markaa Africa Union ka loo yeeray Fuaado oo yimid Hargeysa
fact finding mission bay qaadeen political baa hareera martay afrikaanka iyagii baa nafooda maxamed xaashim muxuu ka wadaa marka boqolka ama halka milyan ee saxiix waa mandate halka milyan oo qof signature ka bixinaya reer Somaliland degan waxay macni oranayaan oo kale annagu waxaan doonayaa goonnada badna adduunka la hordhigaya oo kale qorshe noocaas looma baahna in mandate aynkaas oo kale la qato mandate-kii uu haystaaba oo dawladii uu ka mid yahay madaxweyne la doortay baa isaga u dirtay shaqada marka ku leeyahay walaal saacad caalishada isa failure nimaduna ma haad waxa laga yaabaa inay hargeysa joogaan oo meel walba joogaan qaar shaqadan qaban karaya oo fara badan qaar shaqadan qaban karaya jooga war wasiirkaasi wax badan oo fiican buu qabtay aan ka gudubno barnaamijkuna uu dheeraaday aan ka gudubno su'aasha ugu dambaysa adigoo ah muxaafidkii iyo mucaaradkii su'aashan dhexdhigii waxa weeye hawada Soomaaliya waxa laga xukumi doonaa magaalada Xamar Muqdisho airport sida idaacadaha ku maqasheen maanta Soomaaliya iyo Somaliland iskuma fiicno wada hadal baa u socday oo inkastoo dhowr jeer u dhacsoobay marka haddii hawada Soomaaliya waa Soomaaliya dhan moogta maamka Soomaaliya dhan haddii laga maamulo Xamar siday wax u hirgelayaan aniga waxay la tahay otaniyo inaynu ogolaano maaha taa qodobadii ugu muhiimsanaa ee markii wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya socdeen waxyaalihii aynu heshiiska ku galnay ee ay nala saxeexdeen waxa ka mid ahaa in arrintaasi ay noqoto mid Hargeysa laga maamulo ma garanaysaa meel amaan leh heshiis baynu taa kula galnay heshiiska Soomaaliya oo dhan Soomaaliya oo dhan in Hargeysa laga maamulo madaxweynahoodii Xasan Sheekh baa arrintii saxeexay Djibouti markii la tagay ee Siraanyana tagay markaa waxay ahayd kritik cusub oo ah in ballan la heshiiyey waxay ila tahay inaan wada hadalka Soomaaliya halkaa lagu xidho inaynaan diyaaradaheena ka mamnuucno oo ina soo marin hawada Somaliland ta soo martana gantaal la ku ridno wixii soo dhacaya soo dhacaane waa inaynu hawada ka xidhnaynaguna taasi waa lagama hadlaan hawadeenu inaynu Xamar hoos tagnaa qad qarannimada Somaliland ba wax yeelaysaa aad baad mahadsantahay Fuaado musabbix uu magacaabay subax wasiirada ayaa waxa markiiba soo baxday sheeko oranaysa wasaaradii duulista iyo hawada waa la baabiinaya dabeedna annagoo dhowraan sheekadii meel ku soo qaadno dee naba ku jirto imika wasaaraddaasi meesha markaa ninba hadal aad aan ugu qoslay buu yidhi waniyo maxaa dhacay baan ku yidhi Fuaado maxaa dhacay in wasaaraddii kuwii hore uga dhow yaho wuxuu ogaaday buu yidhi hawe ay Soomaaliya la wareegtay dabeedna wuxuu yidhi aniga dhulkan baan xukumayaa ee dhulkan wuxuu magacaabayaa taa iga saara horta Soomaad garan arrintan sidaa aad sheegtay waxa weeyaan walaalo markii Turkiga la tagay heshiiskii la qaatay memorandumkii la qaatay ee labada dhinac ay isku raaceen in labada dhinacba la ilaaliyay ahayd oo inaga laftigeenu waaniga ku sheegay oo waftigii tagay xirsi hogaaminay meesha uu iskaga dhacay waa awood kala muun lahayn oo wax wanaagsan oo la kala qortay oo wax habaysan oo xitaa Muqdisho inuu markii dambe u duulayahay oo hawshan dhameystaba maalintiiba inuu dhamaysto maalintiiba inuu sii sugsiga ma yahay imikana nimanka reer koonfureedku waa tii kadib baynu tiis qabsanay international community waxaad moodaa inuu ka mid yahay isaga laftigii arrinta ku raacsan yahay mowqifka had iyo jeer inagu haddaynu ogolaanaba Fuaado waxsan isoo ay samaynaysaa anigu marin baa inay jirtaba because they treat us macni less than them inaynu nahay qarankii Soomaalida dawladda Soomaalida ah
ee adduunka laga aqoonsan yahay ee kaliya jirtaa waa taa maanta ay soo farmaajo taa inay aanu ku wareejino ayay go'aansadeen gantaalada tilmaantayna walaal adduunku sidaa uma yar shaqeeyo dad diblomaasiyadu sidaa uma shaqeeye gantaalna aynu ku ridnaba horta ma hayno diyaarad rayidana dee cidima soo ridi karto diyaarad rayida diyaarada dagaal ku iman maayaan diyaarad rayidana cidi kuma iman karto ma soo ridi karto waanay ka imanaysaa muqdisho way soo fadhiisanaysaa hargeysa oo businesskeennii baa ku jira ee mushkil imika laga daba tegi karaa naaw baa laga daba tegi karaa oo ninka farmaajaynta albaabka loo xidho la odhan karaa balaanku sidaas u ahaa hargeysa miyaad hargeysa muqdisho kala jeceshaa la odhan karaa imika isaga soo madaxweyne ma sheeganaysa soo ma tidhaahdid adduunka kuma tidhaahdid hargeysa iyo muqdishoba madaxweyne aanu ah waay baad u prefer garanaysaa in hargeysa loo diido muqdisho laga sameeyo daba wala deegata laakiin wax weeyaan inaga laftigeenu failirnimada qayb ka mid ah weeyaan waxa inaga reer Somaliland waxyaabaha ay failirka ku yihiinna inaynu dad kale ku eedaynaa waa inagu qalab wax weeyaan marka maanta waan maqlay in arrinta lagu wareejinayo adduunkuna waxaad moodaa si sharci u raacaya kamaal si sharci u raacaya inaga Somaliland ma ha dawlad la aqoonsan state kuwa weeyaan ma ha state la aqoonsan sidaas darteed halka stage-kii aynu kolba sare uga sii kici lahayn iyaga wax ku xidhantay nimanka reer koonfureedkaaba wax nagaga xidhan nimanka reer koonfureedka wax nagaga xidhan inaga laftigeenu waxaad moodaa inaynu xarxaroonayno oo ayna waxeen waayo waxa weeyaan markaan yaraa waxaan maqli jiray ma Soomaaliyeed oo tidhaahdaa haddii gacantaadu dhudhub gasho laguma soo dhufto ee waa lagu dhiraandhiriyaa haddaad istiraaq ku soo dhufo gacantaada ee way ku goynu meeshaad la gasho haddaad laakiin istiraaq ku dhiraandhiri waad kala bixi wacni waxa weeyaan Soomaaliya wixii ina dhex maray stage-ka sidaynu u soconno oo dhan baa qalad ah in waxaana break loo qabtaa wanaagsan oo new strategy la sameeyo plan cusub qorshe cusub oo waxaan lagu wajahayo oo xitaa hadday noqonayso nimanka reer koonfureedku maalinta ka dambeysay way sii socdaanba way sii soconayaan inagana fragmented buu noqonayaa processka waliba faado mid baan kuugu darayaa anagu mar haddaanu nahay kuwa ururiya critica dadkaa waxaa ururinaya haddaanu nahay mid baan kuu sheegaya haddaad dejisato gool dejiso oo aad tidhaahdo goolkaa intaasaan ku gaadhaya timeka aad ku gaadhaysaa hadduu dheeraado oo waqtiga aad ugu tala gashay uu ka dheeraado fragmented process buu noqdaa wuxuu halis u yahay inuu isdumiyo niyow Soomaaliya oo inaga way naga sii dambeeyaan kowdhe ha walaal laakiin waxa weeyi niyow international community way nagleen in la macaamilaan waa ma lihiin in ixtiraaf laakiin wayna la macaamilaan waynu la macaamilnaa dad currency-googii loo ciidamadoodii loo calankoogii loo dee waddan ka duwanaynu nahay waa la ogi wadamo badan waxa jira adduunyadu inay qaboosanayn oo laakiin dee haddana dee adduunyadu la macaamishuun Kosovo ka mida ma garanaysaa Kosovo waa la aqoonsay Kosovo iyo baa ka mida ma garanaysaa Yugoslavia markay kala baxeen waa ku kala baxay Taiwan baa ka mida waxa ka mida wadamo badan oo adduunyada oo aanan international ku aqoonsanayn warinagu waxaynu u baahanahay inaynu qarankan dhisno waxaynu u baahanahay inaynu shaqaabuur badan samayno waddankan inaynu ciidamadeena adkayno oo xuduudaheena ilaashano taariikh baynu u baahanahay hay'adaha kale maxaynu ka yeelinaa sultan hawadeennii ay qoladii aynu waani ku soo wada tahawadu waxa weeye walaal maadaama adduunyadu heshiiskii ay Soomaaliya inagu qasbaynayno wada hadalno waxa ka soo baxay shuruucda ka soo baxday afgarad baa ka soo baxay intii jeereen kulanayba kii ugu dambeeyay waxa ka soo baxay in hawadii idina laba xafiis laga furo midna Hargeysa midna Xamar laga furo hargeysana ay hawada wado ta kalena ay sida ahaatay okay halkaa kuu joojiyo meeday markaa maadaama markaa tii imika ay ka baxeen
dhowr jeer waa kuwiis la doonaya inay la soo wareegaan reer Soomaaliya Vancouver xarunta ku taala ee aviationka adduunyada ayaa mas'uul ka ahay iminka waxay sheegayaan wararku in lagu wareejin doono ilaa hadda weli ilma hubno saynaga waxa weeyaan taladeenu taala meesha haddii war haya soo failure nima ma faad soo maaha inagoo failure noqonay in wixii aynu ku heshiinay ay ka baxeen wuxoodii iyagu sameeyeen maya teeni kamay bixine waxay wixii ay nagu heshiiyeen bay ka diideen soo maaha maxaa markaa adduunku kusi no war heshiis laba wadan markay heshiis galaan midkood waa ka bixi karaa ka kalena waa hayn karaa laakiin waxa loo baahan yahay what is the retaliation ka inooga yahay maxay inooga meel yaala haddii maanta ay hawadii iyo ballantii aynu galnay ay ka baxeen aniga dhowr qodob baan soo jeedinayaa tan number 1 in wada hadalladii oo dhan la joojiyo number 2 in diyaaradaha Soomaaliya ka imanaya ee hawada Soomaaliya soo maraya in loo diido marka la announce gareeyo in hawada Soomaaliya la Soomaaliya in soo mari karin culays bay ku noqonaysaa wixii ka yimaadana iyaga ka mas'uula loo oranayaa diyaarad xamar tagtaa ma jirto ama garowe tagtaa ma jirto ilaa ay berbera soo marto ama Hargeysa soo marto ma tagi karaan hawadeena soo dul maraan haddii markaa ay ka baxdo we have to play hardball inaguna waa inaynu niraahna waan soo ridaynaa waxaan haysanaa gantaalahan in lagu soo rido diyaaradaha ayaanu u isticmaalaynaa ilama soo mari karaan oranaynaa dan war hadalkii baa imanaya waxaynu soo bandhigaynaa heshiiskii ay nala galeen oo madaxweynuhu saxeexay oo ahaa hawada inaan la siyaasadeyn xafiis gaarana la geeyo laakiin way ka baxeen dan balanteen waxa weeye inaynu ku adkaysano in wada hadalkii xidhan yahay haddii wada hadalku xidhnaadana ogow midniyo sidaynu moodayna Soomaaliya maaha inaga way lacaga inaga ka cada inaga strong pillars ku taagan markaad iyaga eegto waxa maanta jooga iyo maanta tagto maanta waxa ka jooga iyadu waad arki doontaa afar dawladood bay noqonayaan inaga ayaa ka adag kana awood badan waa laakiin mid waa inaynu aaminaa haddaynaan is aaminina ummadaan is aaminin meel ma gaadho waan walaalo waxaan leeyahay waa inaynu hardball diyaarnaa waa inaynu hawadeena xidhanaa waa inaynu wada hadalkii joojinaa waa inaynu sidaa inaguna ku gariifnaa then dhexdhexaadin baa imanaysa iyo isku imaato waana ka baxay iyo bahalkaygina waa sii dhacayaaye bahalkaygii baa sii dhacaya okay intaas waxaan ugu dhamaaday barnaamijkan kaga hadlaynay arrimaha Somaliland aad baad u mahadsantihiin Fuad iyo Maxamed Xaashi waqtiga aad mahadsantahay way salaam injineer waa salaam waa aad baan kaga qaaday السلام عليكم